aqoon baan u baahanahay iskuul baan u baahanahay awoodii dowladnimo iyo ammaan baan u baahanahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تحيي سلا خيار تنرغي سليسا يكسو دوادا برنامجكي مردسور barnaamijka martisoor ee raadiyo daljirna waxaa toddobaadkan marti u ah aqoon-yahan xasan cabdilaahi ducaale oo xasan jamhad lagu naanayso oo ah halgamaa taariikh dheer ku leh noocyadii kala duwanaa ee dagaaladii loo soo galay xoraynta gobolka soomaali galbeed somali state siiba dagaalkii 77 iyo dagaaladii ka dambeeyey ee jamhaddii WSLF oo ay ku doonaysay inuu gobolkaasi dib u helo madax bannaanidiisii xasan jamhad ayaa isagoo 16 sano jir ah waxa uu ka qayb galay dagaalkii 77 inkastoo uu mar dambe dib u laabtay tagay muqdisho ku biiray jaamacaddii ummadda bartay cilmiga dhaqaalaha kana soo shaqeeyey bangigii dhexe ee dalka Soomaaliya haatanna uu degan yahay dalka Canada halgankaasi maalin qura maskaxdiisa kama bixin waxaana isagoo kaashanaya waayo-aragnimadiisii la xiriirtay xoraynta gobolka Soomaali galbeed ama Somali State oo si durugsan barnaamijkan ugu falanqaynaya waayihii la soo maray iyo waxa laga bartay waxa hadda taagan iyo wacyiga ku gadaaman iyo wadada lagu socdo oo uu ku odorosay waayo waxa la yiri ninkii geerida galbeed ka dhacay gundahaaga ka filo ninkii khayrkii loo xiray adiguna soo qoyso orama waxa u jeedaa faday u jeedaa kordhoolka tog wajaale Somaliland iyo waxay jawaan leeyahay Somaliland iyo Oromia waxba uma dhaxeeyaan qorshoog waa ka barnaamijku waa martisoor anigoo toolmaana idin la socodsiinaya wuxuu idinka imaanayaa stuudiyaha daljire magaalada Boosaaso waxaadna nagala socotaan dhammaan efemyada raadiyo daljire ee dalka aalada satellite-ka abka daljir baraha bulshada iyo bogga internetka radiodaljir.com walaalayaalo iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraay waxaan gudagale xasan cabdilaahi ducaale xasan jamhad isagoo jooga magaalada Alberta ee dalka Canada ayuu khadka telefoonka ugu warramay khadar cawl ismaaciil wuxuuna ku bilaabayaa waayihiisii nolosha magacaygu waa xasan cabdilaahi ducaale xasan jamhad dhammaan dadka Soomaaliyeed ay dhageysanaya radio daljir iyo dadka kale Soomaaliyeed ba waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh 1977 anigoo dhalinyaro ah dugsiga galaaska 8 ka baxay ayaa waxaan ka qayb galay halgankii xoreynta Soomaali galbeed aaga jigjiga ilaa harar markii dambana dalka laga soo baxay dagaalkii Soomaalida ay ku jabtayna jabadii xoreynta Soomaali galbeed mar walbana dalka waan tegi jiray ugu yaraan 4-5 jeer baan dalka ku laabtay inta dagaalada socdeen 80kii ilaa 79kii halgankaas physically waan uga soo qayb qaatay siyaasad ahaanna waan uga soo qayb qaatay magaca xasan jamhadna sidaasaan kula baxay markii dambe oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed galay gahayr qaybta dhaqaalahana ururka dhalinyarada Soomaali galbeed baan markii hore waxaanu ka aasaasay Hargeysa iyo Xamar labadaba waa ka jiray ururkaasaan kamid ahaan jiray madaxdiisa rag badan oo hadda ragga halganka ku jira sida maaday oo kale xogayaha guud ragga isgroupka ahayn bay ahaayeen halganka muddo badan baan ku soo jiray markii aanu dibadda qaxooti ku noqonnayna mar walba dalkaasi maskaxdayda ayuu ku jiraa maankayga iyo maskaxdayda kama baxdo waan ka fikiraa inaan waxaan ka oran kara iyo waxaan ka qaban kara baan ka qabto marka taariikhdeeda oo kooban waa intaa ayaan kusoo koobi lahaa hagaag dabcan dugsi sare adoo ama ka baxay ama dhigta ayaad sheegtay inaad dagaal iyo jabhadeen ka qayb gashay 77 gaar ahaan
da ahaan intee lagu qiyaasi karaa marka imse jir baad ahayd ilaa 17 kala badnay waqti aan dagaal ka qayb galay marka see kugu suurta gashay xilligaas oo kale dabcan qofka aan qoriga qaadi karin ama itaalka yar ama daada yar oo kale in ciidamada laga reebi jiray baan ka warhaynaa xilliyadaas oo aan loo ogolayn furimaha dagaalka ma ahayn anigu militariga Soomaaliya ma ahayn dhalinyaro badan baa ku jirtay oo ilama daadeedu aan isku daahayn ama qaarkood hadda inay bas yaraan baa dhici karto jihadii xoreynta Soomaali galbeed oo ciidamada Soomaaliya iyo way kala gadeen jabhadu way iska agdagaalamayeen jabhada xoreynta Soomaali galbeed baa kamid ahaa jabhadana dhalinyaro u badnaayeen kadib jabhadaasi bal ka waran iyo mabaadi'deedii iyo dadka in yar la qaybsado hal daqiiqado ku soo koobaya iyo markii dambe halkii ku dambeysay jabhadii xoreynta Soomaali galbeed horta halganka Soomaali galbeed ama ogaadeenayada dadka qaarkood ninba soo jecel yahay dagaankaasi waa halgan dheer buu ahaa haddaan dib iyo taariikhda u milicsano halgankii ka dhacay waxay reer galbeed ku yaqaanaan the clash of civilization ama isku dhicii xagga diimaha baan anagu odhan karaa Ethiopia oo kristaan ahay dadka Soomaalida mindaqada Geeska Afrika ku noolaa oo muslimiin ahaa iyo ummado kale oo Geeska Afrika ku noolaa kala waxa ka dhacay macrada waaweyn ama dagaalo waaweyn oo diimo ku salaysan baa ka dhacay dagaaladaas ay arrimuhu dibadda ku hayeen mar walba boqortooyadii Ethiopia ee masiixiga ahayd waxay u hanqal taagaysay inay ku siqdo ama u fido xagga xeebaha Soomaalidu ay degan tahay iska caabidaana jiray farqi u dhaxeeya diimuhu waqtiyada ahaayeen waqtiyadii dambe ee Yurubiyaanku waqtiyadaana dagaal isku dhacyo badan baa dhacay oo muslimiintu gacan sareysay dagaaladuna waxay ka dhacayeen aadisada galkan soo kale lama soo haweysan jirin muslimiintana guuleysatay boqortooyinkii kristaanka ahayd bay Etoobiyaanku gacan ka heleen Boortaqiisku horeeyay muslimiintina waa la soo jabiyay kadib intii ka dambeysay Axmed Guriyana la dilay muslimiinta baa markii dambe la baacsay oo la soo riixayay waqtiyadii dambe Yurubiyaanku ay yimaadeen ciidamadii ugu horeeyay ee Etoobiyaankuna dhulka markaas ay soo galeen markaa mar walba waxaad moodeysay halganku isku dhiib buu ahaa oo heerar kala soo maray jabhada xoreeyada Soomaali galbeedna waxay dhaxashay jabhada ka horeeyay oo Nasrullah iyo Geeshkii iyo oo iska caabin ahayd mar walba ay dadku diidanaayeen soo filitaanka boqortooyada Ethiopia dhulka Soomaalida jabhadii Soomaali galbeed baa halka ka dhalatay jabhadu magacyo kala gidsan bay qaadatay markii dambe jabhada xoreeyada Soomaali galbeed baa la yiri jabhadaasi waxay dagaalkeeda bilowday 1976 guulo waaweynna way gaadhay kadib markay Ethiopia ciidamadeedii kala go'doomisay waqtiguna oo aad u haboonaaday ciidamada Soomaaliya markaa soo galeen dhulkana way xoreysay ilaa Hawaas bayna jabhadaasi gaadhay jabhadaasi dagaalkan way ku jirtay muddo badan ilaa burburkii dawladda Soomaaliya markii dambana waxa qori isku dhiibkii qaaday jabhada Orale waqtiyaas ugu dambeeyay markaa jabhadii waxaana kamid ahay dawladii jabhadihii nabadda qaatay ee melas waqtiga uu yeeray markii la sameeyay ahdigii Ismaaciil lagu yegleelayay ismaamulada Ethiopia hagaag intaynan bal gudagelin su'aalaha siyaasadda maanta iyo dawlad deegaanka Soomaalida bal noo dulmar marka taariikhda Ethiopia iyo sida gobolka ay ku qabsatay siiba xilligii boqortooyadii Haile Selassie iyo siyaasaddiisii la dhaqanka iyo sida Soomaalida aad iyo aad baad u mahadsantahay su'aashaasi khadar oo waa su'aal loo baahan yahay sidaan horeba u xustay isku dhicii taariikhiga ahaa ee diimaha ku salaysnaa ee waqtigii hore Ethiopia markay ka soo gudubtay iyada oo u qabta Soomaalidu ay ahaayeen dadkii Ethiopia jabiyay oo xataa la cadeynayo la leeyahay Ethiopiaanka hilibka cayreen wax Soomaalidu ku qaado oo Soomaalidu habeenkii bay dagaalantaa inay qiiq ama dab shidaan bay ka baqayeen oo lagu soo raaco taariikhda dheer ay naga dagaalka inaga dhaxeeyay markay garabka gacan sare ka heleen gacan iyo taageeraba ka heleen gumeysiyaashii reer Yurub ee Afrika qaybsaday Ethiopiaanku wayna soo baacsadeen ciidamadii u horeeyay ee xaran qabsada
oo raasmo konnan waxay islaasa aabiyo hogaaminayo waxay cagta dhulka Soomaalida soo dhigeen 1887 bay soo galeen harar ciidankaas raasmo konnan baa watay boqortooyo Soomaaliya dad heerweyn isku jireen oo Amiir Cabdullaahi Amiir loo oran jiray markaa harar haystay dhulka Soomaalida harar baa markaa laga xukumayay waxaa daga mandaqadaasi guud ahaan hoos imanaysay boqortooyadii Ottoman Empire ee saldhigeedu ahaa Masar ayay hoos imanayeen markaas dhulka la qabsaday lagu sii baahay Mirilig buu ciidanka qabsay ciidankaasi way soo dhawaadeen dadka Soomaaliduna mar walba resistance ay sameeyeen iyo iska caabi markii dambe dhulka Soomaalida xataa waxa soo gaadhay waqtigii daraawiishtu way ka hortimid oo dagaal baa wuxuu ka dhacay meel la Fadaraawiish oo jigjiga u dhow waxaan u maleynayaa taqriiban 1965 meelahaas ahayd baan u maleynayaa taariikhdaas ma hayo mar walba dhulka Soomaalida axmaaradu way ku soo shaqaysay dadka Soomaalida resistance u sameeyay kacdoona badan baa jiray markii Talyaanigu Itoobiya qabsaday Soomaalidu waxay ka qayb gashay ciidamadii Talyaaniga waxayna iyo carab badan u qabeen inay Itoobiyaanki dhulkooda qabsay iska celiyaan hubna way heleen ragii jabiyay bay ahaayeen boqortooyadii ciidamadii axmaarada ee Itoobiya ilaa adsaba ka saaray Soomaalida u badnaayeen taa iyagoo inoo qabaxay islaas markuu soo laabtay waa soo koobaya taariikhda dhulkii Soomaalidu ay lahayd ay hore u deganaan jirtay dhulka Soomaalida markii dambe natural border ku noqday Hawaas oo haadama duleedkeeda waxaan xasuustaa gabayga tima cadeel ahaa dhoobada Hawaas baan cidnaba naga dhaxaynaynin marka inta ka soo qaysa dhulka Soomaalida mar walba loo xisaabiyo ilaa hadda aan aaminsanahay inuu xadka iyaga Itoobiya oo Hawaas yahay marka dhulka way ku soo siqaysay maalinba in bay qabsanaysay jigjiga 1948 soo gashay SYL baa joogtay waa lagu dagaalamay 15 nin oo Soomaali ayaa ku dhimatay jigjiga waa laga baxay markii dambana waxay ku sii siqday gobolada kale ee ogaadeenaya la yiraahdo ku sii siqday axmaaradu dadku resistance bay sameeyeen dagaalo loo kala mar walba dhacayay meelay kacdoonadu ka dhaceen waxa kamid ahaa ee shacab dadku way dagaalameen dad badan waa lagu laayay kulli guuleed banka dhulka garigu degan yahay dhan waa la guuray dad badan waa lagu laayay way ku dagaalameen dadku dhagaxbuur magaalada dhagaxbuur xasuuq baa ka dhacay 1960gii dadku calan bay saareen markii Hargeysa calanka laga saaray mustaxiil dad Soomaaliya lagu laayay meelo badan oo kamid ah meelo badan baa dad lagu laayay dhinacan iyo qoraxay dadka Soomaalidu mar walba way diidanaayeen gumeysiga ku soo socday laakiin mar walba wuxuu isku dayay inuu kooxo isaga u adeega helo oo fuliyo mataqaanaa mabdiisa expansionka mar walbana dadka Soomaalidu kale kama ahayn qabsashada dhulkooda hagaag marka iska caabinahaas muddada dheer soo jiitamaya ee Soomaalidu sameeysay maxaa sababa inay guul la taaban karaan ama miradhal ay keeni waayaan waa su'aal muhiim ah gumeysiga sidiisaba dadkan hadda wadanka North America oo joogo Canada ah dad waxa jira reer Indians leeyahay oo deganaan jiray dadkaasi First Nation baa la yiraahdaa laakiin qabiil way koox baa loo kala qaybiyay in walba meel baa lagu masruufaa oo welfare ku qaataan kadibna unity mar hadeen lahayn nimankii dalka yimid baa xukuma exactly divide and rule policy dadka Soomaalida waa la qaybiyaa qabiil baa loo qaybiyaa reer baa loo sameeyay boqolkay talbu waxay la silaas sameeyay qayaashmaaj dijaashmaaj garaashmaaj waa tay talo been ah garaad waxaas uu sameeyay ugaas walba nin buu horjoogay iiga noqo halgan xiriirsan oo halgan centralized ama hogaamin dhaxale ma unan helin hasay marka laga reebo waqtigii leegada ama SYL dadka meelaha qaar baa abaabul ka jireen sida qoraxay iyo jigjigo oo kale meelaha qaarkood oo coordination ka jira dadku ay saacabintu ka socotay markii dambe waxa sameysay urur hor jira Nasrullah oo dad dhinacan ogaaleynaya aad uga hirgalay oo dad
dad dhalinyaro ahoo aqoon kali markaa ma jira diinta islaamka yaqaana ay sameeyeen dad ganacsi sameeyeen ururkaasi waxoogay urur nidaamsan buu ahaa inkastoo taageero dibadda kale uuna dagaalamay dhinaca galbeedkana geeshka urur la yidhaahdo baa ka dagaalamayay oo rag aan ka xasuusanahay allah naxariistay cali gudaal faarax iyo niman kale ay hoggaanka u hayeen dhinaca nasrullahina maqtal daahir allah naxariistay iyo nimanba hoggaanka hore markii dambena labadaasi way midoobeen dagaalkii 64 markuu dhacay oo soomaalida Itoobiya markay aad uga dagaalameen oo soomaalida culays badan la saaray ururkiina midoobay soomaalida ay dawladda Itoobiya weerar xoog la ku soo qaaday oo iyadna markaa tamar badan lahayn markii dambe waxay noqotay dawladdii inay raadcigaal inay jabhadii albaabka u xidho uga ka dagaalamayay marka sidaas ay arrintu ahayd marka taageero dibadda ay dadka oo aqoontiisa iyo awoodooduba ay koobnayd ayaa sabab ahayd inay ku guuleysan waayeen hadalkii dadkaasi lahaayeen laakiin qalbigooda iyo maskaxdooda ayuu ilaa hadda midda kala qaybinta aad xustay ayaa dadku aad u soo hadal qaadaan laakiin Soomaalida deegaanka deganayd ayaabad moodaa inay iyagu qayb ka yihiin kala qaybinta oo magacyo kala duwan kala sheeganaya tusaale ahaan maanta arrinta ka taagan dowlad deegaanka Jigjiga iyo ONLF oo ahayd jabhad soo dagaalamaysa muddo iyo kooxo kale oo iyaguna la baxay dulmidiid ayaa ishirdinaya mid kastana waxay u abaabulan yihiin qaab reereed ONLF magac reer bay wadataa deegaan ha lagu sheego laakiin waa magac reeraha meesha deegaan kamid ah oo dadkii kalena oo dulmidiid bay leeyihiin marka arrimahaasi oo dhan dadka Soomaalidu intay caqliga ka shaqeysiyaan meel ma iska dhigi waayeen oo mabda Soomaalinimo ah oo deegaanku kaga dhaxeeyo malayma waayeen qolooyinka waanu kala qaadaynaa jabhadda ONLF markii jabhaddii xoreynta Soomaali galbeed ay runtii burburaysay oo ay hadafkiina lagu guuleysan waayay allah u naxariistay maxamed siyaad bariye migisana kulmeen jabhaddii oo aanu ka tirsanaa qudheedu markaana xafiisyadeedii iyo agabkeediiba mataqaanaa la laabay baa niman dhalinyaro oo dibadda iyo gudaha jooga ay jabhadda ONLF ku dhawaaqeen yes magac qabiil iyo qabiil way u badan tahay magacuna magac qabiil waa u dhandamayaa dad badanna way u arkaan sidaa laakiin hadafka ONLF ay wadatay guud ahaan wuxuu ahaa hadafkii xoreynta qori isku dhiibka halgankii soo taxnaa ilaa Axmed Guri soo taxnaa dad badan saasay u arkay anigu qudheedu personal saasaan u arkayay iyaguna saasay aaminsan yihiin magaca gobolka ogaadeen waa la yidhaahdaa qaybo ka mid ah inkasta oon gobolka oo dhan marka la eego magac ahaan magacaasi xataa maabka iyo Itoobiya iyo cid walba area gaar ah ay u nisbayso haddana magaca waa la qaadan karaa haddii lagu heshiiyo qolooyinka halganka markaa ONLF sacrifice badan bay sameeyeen dadaal badanna way galeen dadaalkooga badan ay muddada dheer ku jireen tixgelin buu leeyahay oo dhiig badan bay dadkaasi u daadiyeen qadiyada muddadii ay halganka ku jireen marka waxaan odhan lahaa anugu qoladaasi halgankoogu wuxuu daba socdaa halgamadii sidaan madaxdoodana ka hayna mabda-ooga iyo barnaamijyadoodana ay ku salaysan yihiin halgankii xoreynta ee ummadda ay horeba ugu soo jirtay marka qolooyinkan kale ee dulmidiid ee ii sheegtay iyo gurubyada kale ee dadkan markan dambe gadooday waa dadkii uu kolley wax ka tirsanaya xukuumaddii waa wakti kooban ururo jira ama dad hadda soo baxay ururo weli rasmi ah inay yihiin ma hubo hase yeeshee loo diidi maayo inay dad urur isku abaabulaan hadday danahooga iyo danta ummadda ka gartaan laakiin wuxuu ururku waa inuu urur national hadaf ummadeed iyo mataqaanaa ka qaybgal ummadeed waa inuu lahaadaa ma aha in koox iyo qabiil ay intay sheegtaa yidhaahdaan waxaan ku hadlaynaa magaca dadka hadday sidaa koox tiraahdo laakiin jabhadaha hore oo aad kasoo mid ahayd waxaa laga yaabaa Soomaalida meesha degan inay u dhamaayeen hadday golaha dhexe noqoto iyo hadday hoggaanka sare noqotaba ha lagu kala badnaado laakiin lagu wada jiray laakiin ONLF oo kale sawirka ka muuqda wuxuu yahay 15 kooxmood ugu sareeya 14 kamid inay isku reer yihiin halganku taasi soo dhaawici mayso waxa
dhaawacayna kama mid noqonayso. wallahi ONLF halga madaxda u sareysay iyo hogaanku iyo tirada dadka ku jira madaxdooda waa sidaas sheegtay oo meel bay u badan yihiin hase yeeshee taa macnaheedu ma aha in ay qabiil u halgamayaan dalkan u halgamaynaa bay leeyihiin talooyin badanna waa laga bixiyey dad badanna way u arkaan inay ururkan reer hebel ay leeyihiin way u arki karaan laakiin anigu personal xasan ahaan iyo dadka kale ee dalka u dhashada waxay aaminsan yihiin in halgankaasi uu halgan guud ay wadaan laakiin ONLF sixitaan baa looga baahan yahay iyo national reconciliation iyo ka qaybgal ummadda degaanku ay ka wada qayb gasho oo ay iska aragto waayo gobollo badan baanan iyo dadkooga iyo aqoon-yahankooga iyo halgamayaasha ayna ka dhex muuqan ONLF markaa ONLF talooyinka loo soo jeedinayay ka mid tahay kolley waxaan u malayaa iyaga qudooda fulaxantii ma mooga way og yihiin dhaliilaha way og yihiin ka maqnaashaha halyeeyo badan oo Soomaaliyeed oo halgan ka soo qayb qaatay iyagayna u fiican tahay danta dadkeena iyo dalkeenana u fiican tahay in la midoobo oo wax la isku wada og yahay lagu midoobo waa tahay haddii dadka Soomaaliyeed isku yimaadaan aanu soo noqono tan deegaanka aanu soo noqono ku dheeran aan deegaanka u soo noqono iyo hadda xaaladiisu meesha ay marayso isbedbedelo badan iyo dabayl siyaasadeed oo kala duwan oo marba dhinac isu rogaysa ayaa Itoobiya ka socotay 3 sano ugu dambeeyay taasoo ugu dambeyn dhaxalsiisay Abiy Ahmed oo Oromo ka soo jeeda inuu xukunka uu ku fadhiisto dawlad deegaankii Soomaalidana isbedel ba ka dhacay oo maamulkii hore waa la dumiyay hogaankiisina dabcan xabsi baa lagu riday mas'uul cusubna waa la keenay Mustafa Cagjar bal arrimahaasi iyo Soomaalida sida ay u saameynayaan kulay deegaankana xog badan baad ka haysaaye sidee u aragtaa isbedelkan ka socda dawlad deegaanka Soomaalida maamulka jigjiga hadda ka jira muxuu soo kordhiyay muxuu soo kordhin karaa runtii khamaro adiga dadka kale ee Soomaaliyeed ay dhageysanayaan hal baan xasuusin lahaa Somali state ama dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaad moodaa dadkiisa iyo dalkiisuba inaan registered ka ahayn ama inayna ka qorayn ama inaan tixgelin laga siin inay horta marka hore Itoobiyaan yihiin arrintaana caddaynteeda la iman doonaa waxa kuugu daliil ah ilaa waagii Xayla Silaaso oo tasayiro rabo inaan dadka Soomaalida islaamo iga raaliya waqtiga yar bay qaadanay qaybo oo waqtigii Soomaaliya ee shirkii 60kii ka qayb galay waa Allah u naxariisto waxa laga wariyay inuu Xayla Silaaso la kulmay uu yiri in kasta oo waxay laga dhaxeeyaan haddana boqor Afrikaan tahay dawlad cusub oo Soomaaliya aan nahay inaadna taageertaan rabaa oo aan wada shaqeyno anaguna hadda oo ido kamid baana xaqiiqada wuxuu warqaymooyin baa tihiin dawladnimada nimankan cadawad idin walayaan oo dawlad ma noqon kartaan qaybooyin baa tihiin maxaa ay ugu kalifay midda kale Xayla Silaaso wuxuu sheegay geeskan Afrikada isaga inuu Ilaahay u soo diray oo Nabi sallallahu ka socdo oo ilaa Tajoore ilaa Banaadir ilaa Khartoum ilaa Nairobi inta u dhaxaysa isagoo boqor ka yahay concept-kaadaad moodaa axmaarada iyo Itoobiyaanku inay aaminsan yihiin dadka Soomaalida inaynan dawlad noqon karin inaynan ismaamuli karin waxaan kuugu darayaa Faysal Rooblaa sheegay Sid Khalifa mar waraysi la yeeshay ninkii la oran jiray Malla Sanaawi wuxuu ku yiri Soomaalidu isma maamuli karto cid walbana saasayda waxaa kuugu daliil ah madaxweynaha kililka wuxuu wakiil ka ahaa saraakiisha Tigreega ee gobolka kuwii ka horeeyay kolba ninka madaxda Itoobiya kolba ninka magacaabo madaxda Itoobiya waxay Malla ama kii meesha fadhiyo may u ahaayeen wakiil waxaad moodaa in awraajo ay noo ahaayeen oo wakiil ka ahaayeen ay dadkan iyagu mas'uul ka ahayn xilna u hayn hase yeeshee ninka soo magacaabay oo shaqeeya عندنا ساسوها استدل بعد عاي توبيا اللي استدل بعد عاي دولة كل قي شراب إنك سو عبدو إسكولي أبي أحمد أبي كما أمي إنه
qoraalay oromadu u qabtay bay ka goynaysay baxar bay geliyeen tallaabay qaadeen tallaabadii misla mid khaldan qaaday waa kii rabshida ay dhaceen dadna ku dhintay sidii isaga lagu qabtay marmarsiyaha qorshaha waa loo dejay waa loo qayilay dad badan oo hadda maamulka ama ku jira ama dagaalka ayaa ka qayb qaata qorshaha cabdi iyo dowladda lagu duminayay cabdi in la eriyey in la xilo iyo waxaasoo dhani dambi badan dad ka gala waxba kama qabno hase yeeshee maamulkii dowladda oo dhan baa la dumiyey kadibna Addis Ababa dadkii Soomaalida oo dhan loogu yeeray dowlad looga soo dhisay madaxweyne loo soo magacaabay madaxweynaha waa Mustafa waa madaxweyne noqon karaa waa nin dhalinyaro Soomaaliya aqoon-yahana deegaanka u dhashay hase yeeshee Soomaalina aynan dooran waa loo soo magacaabay waxba kama qabno in la soo magacaabo hal soo magacaabay ma jirto cid kale oo ummadaha deegaanka ah oo inta dadkooda odayadooda iyo siyaasiyiintooda iyo xisbigooda iyo baarlamaankooda inta la ay adsoo mar walba wax laga soo shubo wax looga soo yeediyo halkaa looga soo cimaamado ma dhacdo bal waxaas tikraha loo yeero macnaha waxa ku sheegayaa Soomaalida si gaar ah baa loola dhaqmaa waxa kaloo xasuusanay madaxweynayaashii gobolka soo maray dhammaantood mid walba marka danta laga leeyahay laga dhamaysadaa la xiraa cabdi danta Itoobiya u qabtay cid u qabatay ma jirto haddana waxa jeel buu ku jiraa Mustafa si kasta u dadaalo oo nin dhalinyaro oo aqoon-yahan u yahay waxaad moodaa isagiiba xataa inay hadda wax u suura gelayeen si kasta oo uu arrimo badan oo xilka saaraa oo ammaanka safety-ga sharafta dhulka dadka Soomaaliyeed iyo dib badan oo dadka Soomaalida hoostiisa ku gaara oo indhaha ka qabsado si uu raali geliyo nimanka Addis Ababa jooga marar badan Mustafa wuxuu ku celiyay dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed kursi ku qaabsan maayo buu yiri taasina uma muuqato oo hadda Mustafa hadda waxyaalaha uu sameeyay ee uu indhaha ka qabsaday wax dhul Soomaaliyeed iyo qarannimadii jiritaanka Soomaaliyeed meesha ka saaraya ayuu indhaha ka qabsaday maxaa kamid ah waxa ka hor imanaysaa wixii markuu waxa kamid ah dagaalada magaalada Jigjiga duleedkeeda ka dhacaya oo uu ilaa uu xataa inuu ka hadlo iska dhaafay ilaa cadda naasiriid ee ku taala 500 oo kiiloomitir u jirta ka waranta dagaalada oo been ka akhriyaysa intiiskiisa markuu joogo qiiqa reeraha gubanaya wuu arkayaa daawicii meydkii magaalada lagu aasayna wuu arkayaa umana taxsiya kamana qayb galo intaa waliba waxa dheer inuu ilaa caddii Jigjiga ee ka warrami lahayd dhibka nin waliba journalist uu ahaa Warner News wax ku soo qori jiro nin miidiyaha jecel oo maalintii la doortay wuxuu lahaa wax kasta iga sheegi kartaan taa mar hadda aan weyn joognaa oo madaxweynaha iyaga weey laakiin dhaliishiisa sheegayna ilaa caddii xataa u diiday Jigjiga inay ka warranto dagaalada dhacaya inay ka warranto afku ilaa caddii qabtay kama hadli karaan ilaa caddii wuxuu ka dhigay ilaa caddii ruushka ee wixii program ah ee jire kaliya dawladdu leedahay uu laga sheegi karo waana nasiib daro aqoon-yahan Mustafa Cagshar oo waliba qoraalada ku fiicnaa oo journalist ahaa oo qoraaladiisa magacyo kala duwan ku qori jiray Warner ku qori jiray aan akhriyi jiray inuu maanta meeting isagii mid ku yahay isdoreenka mid waxa kaloo kamid ah commission-kan la magacaabay labada commission ee la magacaabay ee midna tirakoobka iyo mataqaana dib u xuduudaha uu yahay midna uu yahay dib u heshiisiinta iyo jinsiyadaha labada guddiga oo targetka ama ujeedada guddiyada loo sameeyay ay tahay Soomaali oo dagaal meel walba laga soo qaaday iyadoo oo dhul Soomaaliyeed oo 11 degmo oo dhulka dhererkiisu uu yahay 1500 kilomitir talacana ilaa 200 kilomitir Oromo hore loogu wareejay si sharci darro ah Oromo loogu wareejay haddana intii hadday intaa inay sharciyeysaan inta kale ka daran ay hadda soo wadaana waxa kamid ah koow tirada in la qaato Jigjiga in oo la geliyo barida lagu oran doono Jigjiga hadda dhulka lagu dagaalamayo ee Oromo sheeganayso
bari buu ka xigaa oo waqooyi buu ka xigaa oo koonfur buu ka xigaa oo magaalada 5 kilomitir bay kaala maalo Oromo calankeedu taagan yahay ay magaalada Jijiro u jirtaa waa nasiib darro wax la qaadan kara ma aha caasimad Jijiro ma noqon karto inta ay jiraan 20 kilomitir u jirto Oromo 500 kun dad hadda ay ku soo wado oo keen rabto wana sidrooyinka in haystay kamid tahay dhulkii Soomaaliyeed ayaa isagoo on his own watch isagoo arkaya aqoonyahana garanaya hadee waxaan garanayn halka anagana xanuunaysa Soomaalnimada noo xanuunaysa dhalinyarada mutacalimiinta ee Jijiro joogta aqoonyahanada nagaba aqoon badanba halka xanuunila baa anaga oo dibadda joogno aniga caruurtaydu jaamacadaha ka bixeen kanaday joogaan inay tagaan lagama yaabo wadankii waa ka xanuunsanaya kuwa caruurtoodii ay joogaan baa waxay daawanayaan dhulkooda gacanta ka sii baxay guddiyahaasi waxay sharciyeyn doonaan Jijigana inay magaalo la wada leeyahay noqon doonto barina ay Oromo oran doonto annaga leh idaacadda Oromada ee Jawaar Maxamed oo saaxiibkii Mustafa Cagshara u leeyahay waxay tiraa caasimada ku meel gaarka ee Soomaalida bay Jijiga tiraahdaa qolooyinka Jijiga jooga ee daawanaya dagaalka ka dhacaya duleedka magaalada Jijiga maanta iyaga haysataa Jijiga maanta arrintu maraysaa waayo waxa la yiri ninkii geerida galbeed ka dhacay gundahaaga ka filo ninkii khayrkii loo xiirayo adiguna soo qoyso Oromo waxay u jeedaa faday u jeedaa kordhoolka tobo jaale Somaliland iyo waxay Jawaar leeyahay Somaliland iyo Oromiya waxba uma dhaxeeyaan qorshoog waa ka intii kale dalka noo hali lahayna oo ku hada baybadka heshiisyada kula galaya dalal kale kamana hadlaya maxaad xalka markaa u aragtaa adigu halka waxaan u arkaa dawladda madaxweyne Mustafa Maxamed Cagshar oo waajibka iyo xilka saaran ee qoomiyadaha ka saaran isagoo ku dhaqmaya sharciga iyo xaqa uu dastuurku siinayo inuu dadka iyo dalkaba difaaco sharciga ku mali Mustafa uu ciidan qaado oo Oromo la dagaalan ama federaalka la dagaalan Mustafa wuxuu haystaa iyo xukuumadda iyo kuwa rabal islaamka kuwan baarlamaanku sheega ee magacyaalka iyo kuwa xisbiga sheegtay iyaguna aan garanayna waxay ahaayeen badhamaantooda magac sheeganaya waliba kuwa baarlamaanka kuwaasaa muhiim ee kuwa xisbigu wax iyagu meesha ku jiraba ma hadda maba jiraan baan aaminsanahay inay sharciga isticmaalaan oo ay dalkan difaacaan walaha federationka dad baan ku leenahay gudoomiye ku-xigeenka ku leenahay kuwa lugaha iyo gacmahaba taagan weeyii marka qodobka laga hadlayay halka tigreego oo laba gobol oo yaryar laba dagaal oo yaryar laga rabo oo dad leeyahay wargeeska iyo raaya dad leeyahay oo axmaarada in loo gooyo la rabo ka dagaalamaya waxay iyagu way diideen kuwa baarlamaanka federaalka ugu jira diiday annagana kuwa iyagu lugaha iyo gacmahaba way taagaan ilaahay gacmaha iyo lugahaba hadgooyo Soomaalida ma matalaan nimankaasi aad sama jooga arrintaas soo baasiyay waxaan Mustafa iyo dawladdiisa kula talin lahaa yeerin arrintani inagu noqon arrintii aan berigii awooyaasheen iyo aabayaasheen sameeyeen ahayd u shaadanimad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa maalintaan xayla silaasaa raacna la lahaa ninbaa waxa laga sheegay odaybaa xaado baa lagu sheegay 19 waxay ahayd 46 ama 47 odaybaa ilaa u shaadanimad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa ka qaadan weyna u shimaanta halka inala marayso waa aragnaa arrimaha la dhayarsanayo guddiyada la sameeyay ee la sharciyeyn doona oo loogu talagalay in dhulka Soomaalida dirdaba hadday tahay dirdabana hadda toos loo qaato mooyaala la qaato hilacsan kuwa kala la qaatay tulli iyo Jijiga ku jira qeyb tulli waxa meena waa magaalo yar tuulo yar weeyaane caasimadii Jijiga loo jeeda halka loo jeeda waa halka taasa bari la wada sheegani waayo tulli hadda waa lagu meersan yahay kadibna waxay maanta damana Oromo qaadanayso oo u foolin doonta maanta damana ceelasha baroolka la naga daba imani Soomaaliya halkaas aan maraynaa aanu dawladdu sharciga ku difaacdo dhulkan
madaxweyne mustafa seefta dhulkaa galkaa kala baxo haddii la xiro sharaf baa lagu xidhi haddii la eriyana isagoo sharaf lagu soomaali ummadiisa magac iyo sharaf ka heli ilaahayna waa og yahay annagu dhul oromo ma rabno dhul qoomiyeed kale ma rabno waxaa kaloo odhan lahaa qoladii oole ee halganka muddada dheer ku soo jeedisay ee u lumiyey ama u waayey qadiyadan wilal badan tiro badan kuwa ay tigreegii iyo askartii etoobiya dilaan iyo kuwo walaalahood ay dilaan oo laba horkeena ay dilaanba ha noqonina olaf kama filayna inay olaf noqoto ka fili maayo hogaaminta olafan ogahay ka fili maayo inay noqdaan kama filayo inay noqdaan ninkii boqorka Soomaaliya baktiga ku afuray sharciga gees Ethiopia heshiis la gala la heshiiya halgankeena aan biismu ku wadno laakiin waxyaalaha qaarkood laakiin arrimahan masiiriga ee dadkii iyo dalkiiba faraha ka bixinaya ee inaad ka aamustaan hadda ragii wilashii Tuufaan Axmed Gurey dhiirhane ama dhaar sanagaaskii horyaal ciiltire iyo jabadihii raggii ka soo dhintay iyo halgamayaashii oralaf u soo dhintay gaas qoraysaa haddii aan arrintan ka hortegi weyno ka dagaalami weyno sharci ku dagaalami weyno arrintana xaq baad u leedihiin guddiyadan waxaa ku jira olafta ku jirta olafta oromadu way ku jirtaa jabadaha kale way ku jiraan sabab idinka la idinku diido idinkoo stakeholderskii dalkan ah legitimacyga keli ah ee aanu dalka hadda waxaan siin lahaa olaf baan siin lahaa waayo dhiig ba usoo daadiyeen dowladda mustafana waxaan leeyahay dowlad gobolka hadda mas-uulka abaa tihiin sharci ku dagaalama dalkan difaaca ilaahayna wuu idin garab galay ummadda Soomaaliyeed war walaalayaal waxaan wax ku noqon karaa midnimo qoomiya inaan helno reer waxba ku noqon mayno reer hebel oo dagaal lagu fiirsado macna inoo samayn mayso hebel baa xukunka haysay aan dimiga caqli maaha xilku waa meerto maalinba nin baa hayni mustafa hadduu hayo shalay nin kala hayay han isku hanayna wax yaanan qabiil ninna looga horiman mustafana hadduu jidka saxa qaado sida maalintii dhaweyd u hadlaayay wuxuu Soomaalida ahay annagu wixii xaqan u leenahay waa raadsanaynaa ha kaga dhabeeyo arrimahan hadda horyaale ee una ka hadlin ee ku dhalinsanahay mustafana caadifada hay iska daay iyo carada barnaamijkii martisoor ee raadiyo daljirna khiyaarayay toddobaadkan waa naga intaas anigoo tolmaana ayaa idinla socodsiinayay wuxuu idinka imaanayay stuudiga daljir ee magaalada Boosaaso waxaa marti u ahaa Xasan Jamhad oo khadar cawl u waramayay dhammaan xarumaha raadiyo daljir aalada satellite-ka abka daljir baraha bulshada iyo bogga internetkana waa nagala socoteen intaan barnaamijka lamid ah ku kulmayno waa tolmaan oo idin leh nabaday nin xornimo u jeeda jalaafada gumaysiga kama joogsanaaye waa inaydun jiidhaan isticmaarka jeebisaan waa inaydun jiidhaan isticmaarka jeebisaan jaalayaal walaalayaalo jaalayaal walaalayaalo iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraaye iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraaye